الرحيم waxaa sharaf iyo cizi noo ah anigoo ku hadlaya magaca dawladda Puntland anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta ee Puntland maanta inaan furay idaacaddii dawladda Puntland ee degmada Baran idaacad kaliya ma aha halkan waxay noqon doontaa stuudiyaha televisionka iyo radioga Puntland ee gobolka Sanaag nasiib wanaag Barani waxay heshay idaacad FM oo ka soo galaysa 88.8 idaacadaas oo laga dhageysan doono guud ahaan degmada Baran iyo nawaaxigeeda sida la socotaan marka laga hadlayo idaacadda iyo warbaahintu runtii wax fudud ma aha juhdi fara badan baan gelinay guud ahaan dawladda Puntland waan suraysan doonaa waan ka wada hadli doonaa idaacaddu hadda waa tijaabo xalay hawada soo gashay way shaqeyn doontaa insha Allah waxay hawada si toos u soo gali doontaa maalmaha soo socda idaacaddan waxay baahin doontaa barnaamijyo fara badan oo kala gedisan barnaamijyadaas oo aan isleenahay gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada Baran way u baahan yihiin waxa jira dhalinyaro fara badan oo wiilal iyo gabdho ah oo suxufiyiin ah oo ku sugan stuudiyaha kuwaas oo ka qayb gali doona ama ka shaqeyn doona stuudiyahan Puntland television and radio uu ku leeyahay degmada Baran waxaan jeclahay fursadan inaan uga mahad celiyo rag fara badan oo mas'uuliyiin ah iyo dad gaar ah oo deegaanka ah oo gacan ka geystay sidii idaacaddani ay u shaqeyn lahayd awalan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo runtii la'aantiis aysan ii suurta gasheen idaacaddan inaan furo dadaalkii aan u geliyay idaacaddan inaan sameeyana kaalin laxaad leh oo aad iyo aad u weyn ka qaatay madaxweyne waad mahadsan tahay waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo shirkadda Golis oo iyaduna kaalin laxaad leh ka geysatay sidii internetka iyo waxyaalaha la halmaala ay iyaguna nooga caawiyeen waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo mulkiilaha shirkadda korontada degmada Baran Maxamed Caydiid oo isaguna runtii kaalin laxaad leh oo aan ilaawi karin ka geystay si gaar ah waxaan isna u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka saaxiibka Ciyoon oo isaguna kaalin weyn ka geystay markastana magaaladan lagu soo dhaweeyaa waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo guud ahaan deegaanka degmada Baran dhalinyarada saxaafadda inta in la mid ah waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa asxaabteeda golaha wasiirada sharaf leh wasiiro hawlo shaqo u yimid gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada Baran ayaa nagula sugan stuudiyaha iyaguna dabcan kaalintooda furitaanka ayay ka qayb qaadan doonaan golaha wasiirada dawladda Puntland gudoomiyaha gobolka agaasimaha TV-ga idaacadda marti sharafta kale baxda saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam runtii waxaan ku faraxsanahay inaan maanta joogno idaacaddii gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran furitaankeedii inaan joogno aad baan ku faraxsanahay waan dareemaynaa inay ku timi wasiir juhdi iyo dadaal inay ku timi waan dareemaynaa waan ognahay wax iska yimaadaan ma jiraan aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa runtii wasiirada dawladda Puntland dhammaantood waxqabadka mugga iyo miisaanka leh iyo maaragtay sida uga go'antay waxqabadka gobolku aad baan idinka mahad celinaynaa gaar ahaan wasiirka warfaafinta oo deegaanka warfaafinta oo arrinta tan maaragtay juhdiga dadaal dheeraada soo galiyay iyo dawladdiisaba aad baan idinka mahad celinaynaa gobol dhan oo aan lahayn wax maaragtay idaacada iyo wax maaragtay ummadda ay ka dhiibato wacyigelimaha wax kasta oo loo baahan yahay waa mushkilo waxaa jirtay idaacad yar oo arkay wasiirka aan tusnay oo FM yar oo marray aan gacanta ku haynay oo degmadu ay ku haysay caqabado jira iyo sababa dartood ay u xirantay waxaan oo ay ku xumaatay insha Allah laakiin maanta waxaan joognaa mid ka baaxad weyn oo meelo badan taabanaysa inay gaarto tan badan may dhaafi jirinin inaan maanta haysano waxaan rabnaa inaan laga shaqeeyo oo lala shaqeeyo idaacadda runtii ay bulshada la shaqeyso oo waxaan socodsiinteeda laga rabaa waa dadka ku nool maaragtay gobolka iyo degmadaba si iyadoo u shaqeyso haddana la shaqeyn ma shaqeynayso waxaan aad wallahi u dareemaa markaan tago gobolada kale mise war kasta waxa laga dhageysanaya idaacadii ku yaalay magaaladii adigana markaad magaalada tagto wax badan waan kareen oo aadan ka wareeri kareen marka aad waxaan u soo dhawaa runtii waa horumar mug iyo miisaan leh
dhinaca ugu xigo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdisalaan oo runtii hawshaan dadaal weyn ku soo bixiyey kuna mahadsan dowladda oo xukuumadda oo 4 bilood jirta in wasaaraddii warfaafintu ay ka shaqeyso gobolka Sanaag maaragtay kaalin muhiim ka qaatay wasiirka waxbarashada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo wasiirka hawlaha guud arrintan runtii muhiim bay inoo tahay warbaahintu iyo maxaan ku rahaa saxaafaddu muhiim bay inoo tahay waxaan rajeynayaa insha Allah taala dadweynuhuna bulshaduna inay aragtidooda iyo maxaan ku raahdaa dawlad dhiska iyo horumarka insha Allah taala ay iyana u adeegsan doonaan haday culimo tahay haday dhalinyaro tahay haday odayaal tahay haday haween tahay intaba marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta oo ay tahay 25kii bishii 6aad June 2019 inaan halka ku daafurayno maxaan ku iraahdaa raadiyaha iyo TV-ga Puntland xarunteedii gobolka Sanaag waxa kale oo farxad inoo ah inay intaan oo wasiirada nagala soo qayb galaan daafurka iyo furitaanka maxaan ku iraahdaa raadiyaha iyo TV-ga Puntland xaruntiisa magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxaan rajeynaynaa insha Allah taala xukuumadan uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo 4 bilood jirtay sida ay gobolka maxaan ku iraahdaa u imaanayaan haday xildhibaan tahay haday wasiir tahayba in insha Allah taala ay mirdhalkeeda aan dhawaan arki doono wasaarad kasta inay ka shaqo gasho gobolka aan wasaarad kasta waxa ay bulshada u haysaa wax khadamaadkeedii marka inay u soo gudbiso marka wasaaradda warfaafinta waan uga mahadcelinaynaa inay shaqadii ay bulshada u haysay ay gobolka ay soo gaarsiisay wasaaradaha kale insha Allah taala saasan rajeynaa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka hawlaha guudna hawlaha la mid bay u yimaadeen wasiirro kalena waa inoo imaan doona insha Allah taala cashuurihiina waa inoo socdaan cashuurahana insha Allah taala wasaaradda maaliyaddu way adeegsan doontaa idaacadda raadiyaha si bulshada uga dhaadhiciso u fahamsiiso muhiimadda ay cashuuruhu inoo leeyihiin golihii deegaanka ayaa la dhisi doona insha Allah taala wasiirka arrimaha gudaha ayaa inoo iman doona runtii dawladda Puntland iyo dadka halkan ku nool degmada Baran waxa ahmiyad weyn u ah oo khaas ah u ah maanta in laga furay idaacad FM ah oo laga dhageysan karo magaalada Baran iyo hareeraheeda arintaas waa arin guul ah dadaalkeeda iyo xoogeeda waxa qaaday oo galay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Masar Cabdisalaan oo aad arinta u riixay gacan weyn uga geystay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni wasiir adiga madaxweynuhu aad baa u mahadsantiin dadaalkiina waxaan rajeynayaa dadka reer Baran inay helaan hadda ka bacdi meel ay wax ka dhageystaan oo ay kala socdaan mar labaadna waa mahadsantiin annagu wasiir ahaan waxaan u nimaa hawlo kala duwan oo u jeedaan hadda 4 wasiir baan ku joognaa qof walba shaqo u yimi wasiirku wuxuu yimi jidadkiisa ay noqdeen iyo sidii ay u socdaaneen iyo roobku soo wax u yeelay iyo Baran kale kuma kaane hadaftimu socdaa saakana waaba gudbayo xagu sii gaar si uu qiimeyn ugu sameeyo jidadku sayeen iyo meesha wax marayaan iyo meelaha wax u baahan iyo meelaha dayucu ka jiro anigu waxaan u imaano wasiirka cadaaladda hawlo badan oo cadaaladda ku tacalluqa koo ay ka tahay jeelka ama xabsiga weyn ee magaalada Baran sidii wax looga qaban lahaa waxaan kaloo booqday saldhigga magaalada Obiga waxaan kaloo la kulmay xafiiska xalinta khilaafaadka oo runtii ahmiyad weyn inoo leh oo ah xafiis ay ka qayb qaataan culimada iyo odayaal dhaqameedka iyo dumarka iyo dhammaan khilaafaadka lagu xalliyo aadna wax inoo taray wasiirka waxbarashada waa la socotaan isagu kama dhaqaaqo magaalada waa ku soo socdaa bishii waxa laga yaabaa dhowr jeer inuu yimaado hawsha uu hayo iyo hawsha uu qabtayna waxaynu isaga sheekayn karna maaha iyada u dheertahay arrimaha isaga la xiriira waxbarashada wasiir Cabdisalaan hawsha ugu weyn isaguna uu yimi waxa weeye soo maanta idaacadan uga hirgelin lahaa halkan alxamdulillaah waxayna ogtay in hergash hawlahaas aan u nimi xalayto waxaan la kulanay suldaankii Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud ilaahay ha dhowree runtii soo dhaweyn buu na siiyay waxaan kala hadalay ka wada hadalay sidii amniga aynu u siyaadin lahayn oo u xoojin lahayn magaalada amnigeeda looga wada shaqeyn lahaa idinkana waxaan idinku boorinayaa shacab ahaan in amniga ka wada shaqeyno oo dawladda kala shaqeysaan
annaga kaliya dhabada ma soo qaadin wasiirro badan baa ku soo jira kuwaan filayna xalay inay yimaadaan saaka ay soo gaaraanin wasiirkii duulista iyo wasiirka xogeenkii amniga damaqan wax ku dhacay wasiirro kaleetana waxa weeye iyaguna waa soo socdaan jidkay ku soo jiraan wadadii waa inoo furatay baran saasaa dee loogu soo socdaa looguna soo qulqulaya haddii allayno waxyaaba badan baan arrinta inoo sahlay guusha maanta aynu gaarnay iyo meesha aynu wax marinayno inaan dib uga noqono ma rabno inaynu hore usii wadno maahan arrinta aynu hore ugu kacan karnaa marka waxa weeye inaynu dhammaanteen ka wada shaqayno arrintaas furitaankiina waxa weeyaan xafladii maanta waxay furitaanka aad baan ugu faraxsanahay inaanu nasiib u yeelanay inaan ka soo qayb galno oo wasiir Cabdisalaan uu nagu marti qaado isagana mahad gaar iyo saddexaad baan u jeedinayaa wasiiradna waa mahadsan tahay waxaan ku soo gabagabeynayaa aynu wada shaqayno amniga aynu ka shaqayno wixii wadankeena iyo magaaladeena khalkhal ku wada oo amni darrada ka shaqaynaya aynu iska wada qabanno meel aynu uga soo wada jeensano isku doon baynu saarana wax kasta waxaynu maanta ka bilaabaynaa magaalada waxa weeye ground zero baynu ka asaasayna sida wasiir Cabdullaahi uu sheegay wax badan la iska dulqaato haddii wax badan dahaanin hal la sugo waxaan rajaynaynaa inay noo dhamaystirmaan dhammaan waxyaabaha aynu raadinayno intaas baan soo jeedin lahaa hadalkayga soo gumaadin lahaa waa mahadsantihiin aad baan u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ka abaal noqo oo ka mahad celiyo kelmadaan ilaaway oo ahaa dadka reer baran sidii habsamada lahayd ay noo soo dhaweeyeen annaga wasiir ahaana si diiran oo waxa weeyaan aan laga sheekayn karin oo niyasami ku jirto ayaa noo soo dhaweyseen iyadana waxa weeye mahaddeeda leedahay waa idinka mahad celinayaa